toddobaadka iyo dhextaalka wararka maanta waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Somaliland oo la kulmay suxufiyiinta gobolka Awdal diyaar garowga 18 May ee gobolka Awdal garoonka diyaaradeed ee laga dhisi doono Itoobiya aniguna waa libaax barqiye wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Somaliland mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh ahaana eegas gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka Somaliland ayaa casho sharaf ku maamuusay warbaahinta gobolka Awdal casho sharaftan oo ujeedadeedu ay ahayd mid wasiirku kaga xal wareysanayay warbaahinta iyo duruufaha kala duwan ee ay ku shaqeeyaan si wax looga qabto caqabadaha ku gadaaman isxog waraysi kadib wasiirku waxa uu ballan qaaday in uu kala shaqeyn doono gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee gobolka Awdal suxufi ishqi sidii warbaahinta gobolka Awdal uu heli lahaa waxbarasho kor loogu qaadayo tayada iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta oo heer jaamacadeed ah taasi oo maalmihii ugu dambeeyay ay culays ka saarnayd ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soljo oo la filayo in ay dadaal dheeri ah geliso sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadooda saxaafadeed wasiirka ayaa uga mahad celiyay la kulanka iyo sida wanaagsan ee ay u soo ajiibeen waxaana uu sheegay inuu mar walba uu diyaar u yahay qorshe kasta oo waxtar u leh kor u qaadida xirfadda iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta gobolka Awdal Boorama kulan saddex goosood ah oo dhex maray maamulka gobolka Awdal iyo degmada Boorama saxafiyiinta iyo dadweyne kale ayaa maanta ka qabsoomay xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama ujeedka kulankani ayaa ahaa diyaar garowga sanad guuradii 34aad ee xuska 18 May 2025 calanka Somaliland ayaa dariiqyada meheradaha iyo xafiisyada dawladda si weyn loogu sharaxay halka dadweynuhuna shakhsi iyo kooxba iskugu abaabuleen shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines ayaa lagu wadaa inay ka dhisto garoonka ugu weyn Afrika meel u dhow xaafadda Bishaftu ee dalka Ethiopia shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia ayaa bangiga horumarinta Afrika kala saxeexdeen heshiis maalgelineed oo dhan 7.8 bilyan si loogu maalgeliyo mashruuc cusub oo garoon diyaaradeed ah xarunta cusub ayaa yeelan doonta 4 runway iyo awood baarkin diyaaradeed oo dhan 270 diyaaradood mashruucan ayaa lagu wadaa in la dhameeyo sanadka 2029 iyadoo Ethiopia ay noqon doonto xudunta duulimaadyada ee bariga Afrika ka warkeeni caawo aynu joogo taariikhduna waa bishii shanaad kowdeedii 2025